السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا دمانتين reer banaadir soo dhowaada. Jumca mubaaraka idin leeyahay. Waxaan jeclahay si kooban aan uga hadlo mas'ale la xiriirta tacsiyad la siyaasadeynayo. Maalin hore qubuuraha waxaan ku aragnay qubuurihii maaragtay oo loogu talagalay qofka haddii uu tago inuu aakhiru kusoo xasuusto mas'ale oo markaa meesha aan loo joogin oo ka hadalkiisa muhiim aan ahayn, ayadoo la isku dayayo jamcigaas iyo dadkaas badan meesha isugu yimid, ayadoo la isku dayayo laga faa'iidaysto telefishinkaas meesha yimid, mas'ale markaa meesha aan oolin ayaa qubuuraha lala dul istaagay. maantana ay jimco ay tahay, haddana in lagu soo celiyaa la rabaa oo la geeyo masaajidka jaamica xamarweyne bacda alkhudba, markii dadka ay salaada ay soo gutaan waajibka salaada jumcaha ay soo gutaan, in maaragtay banaanka lala istaago oo mas'aladii lagu soo celiyaa la rabaa. marka mas'alo oo tacsiyo oo la siyaasadeynayo waayo. marka hore tacsiyadii sideedaba gudashadiisa fardi kifaayo way, ama janaazada in la gelbiyo, janaazada in la tashyiiciyo oo la asturo oo la duugo qofka fardi kifaaya waaye. haddii taa'ifa min al-umma laga helo waajibkaas, inta kale oo meesha ka maqan way ka dhacaysaa. sida salaada shanta salaad oo kaleenta maaha oo qof kasta laga rabo camal ma aha. sida salaada jimcaha oo maaragtay in yacni la oogo oo markaas qaryadaas dadka degan ama tuuladaas dadka degan, xaafadda dadka degan oo kullu mukallafiinta ah inay kasoo qayb galaan ee waajib ay ku tahay, camal ma aha. diinta axkaamteeda cayni waxaa ku jira wax cayni ah iyo wax kifaa'i ah. fardu cayn iyo fardi kifaaya la yidhaahdaa. mas'alada ku saabsan yacni qubuuraan la tago ama maaragtay janaaza in la raaco, janaaza maaragtay in lasoo asturo, mas'aladaas kifaa'i waaye. taas mid waaye. qofka maaragtay oo fiqhigi shaaficiga ka helaysiin kitaabka ugu soo dhow oo mas'aladaas idin sharxi karo qaasimiga waaye. hadda maaragtay masaajidada waa intiisa badan waa lagu aqriyaa, tulaab alcilmiga ayaa loo daraasadeeyaa, ma fahantay. laakiin waxaa ceeb ay maaragtay dad waaweyn ah oonba kala fahansaneen masaladaas. qofka oo markaas tacsiyada ay u taalo asagaa dadka kala yaqaano, oo haddoo rabo maaragtay si gooni ah ula xiriiri karo oo dhihi karo maxaa dhacay tacsiyada leedinka waaye, maxaa maaragtay inaad tacsiyadii gudatiin leedin maqli waaye, qofkan aniga kaligeen nagama dhimanin, kulligeenu naga dhintay, idinka xataa waa idinka dhintay ya, tacsiyada kulligeenu waa wada leenahay, maxaad maaragtay leedin maqli waaye, maxaa leedin arki waaye. yacni sidii qof maaragtay qofka niida loogu dhiso, qalbiga loogu qaboojiyo, asaga iyo dadkii macrifadiisa ah ay ka dhexaysaa. laakiin qolooyin oo maaragtay hadda dadka tacsiyada anaga waa kala naqaana, dadkana waa kala kasayna, laakiin qolooyin oo mas'aladaas ayaka gacanta ay ugu jirin oo ayaka aan tacsiyada iska lahayn oo saas ugu tasarufaya ka waran, oo yacni si munaasab aan ahayn tacsiyada u siyaasadeynayo. marka maantana waxaaba lagu leeyahay waxay maaragtay mas'aladaas rabaan inay yacni keenaan mar kale masaajidka banaankiisa. taas ay soo gaartay. haddii wax jira ay tahay aniga waxaan dhihi lahay mustaqbalka waxyaalahan oo kale laga fiirsado. ciddii rabta inay cid cambaarayso ama siyaasiyiin maaragtay wax ku saabsan rabta inay ka hadasho, waxaa idin dhihi lahay walaalayaalow wax kale raadiya. laakiin tan munaasab ma ahan. tan haddii ay dhacdo waa ku khaldanteen, idin kalena isku ceebeynaysiin. maanta waxaad dadka u sheegteen walaa siyaasadana inaada wax ka fahansananina,
walaa maaragtay axkaamta diinta xataa kan ugu basiidka ah oo ugu sahlan oo asaasiga ah xataa inaadan fahansanaynin marka masaladaas waa idinkaga digaa mustaqbalkana waxaan aan rajaynaa reer banaadir inay maaragtay waxyaalahaas oo kale ay ka fiirsadaan aysan ku degdegin wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah jumca mubaaraka insha allah